gaarigan aad aragtaan waa gaarigii uu lahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo waxaa la sheegay in qof isku soo xiray babooyinka qarxa uu ku dhagay gaarigan oo uu saarnaa afhayeenka kadibna uu qarxay marada aad aragtaan waxaa ku jira hilibka qofka isqarxiyay saaragtaan gaariga aad u burburay war lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo qaraxan la beegsaday oo dhaawac halis ah soo gaaray isla markaana hadda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho waana been abuur wararka sheegayo inuu geeriyooday Sooria waa afaya maanta kale hooyga soo dhaafayna kamarada homarna marka qaraxa waxa uu burbur weyn u geystay gurihii ku yaalay halkan نولي عافنا ها ماشي حال كده عادي ما